Magaciisu waa Cabdiraxmaan, laakiinse dadku waxay u yaqaanaan Dabcasar. Waa shakhsi caan ah oo si weyn loogu yaqaano baraha bulshada. Hore waxa uu duubay muuqaallo kala duwan, dadkuna waa ay barteen. Laakiinse hawshii iyo sidoo kale arrimihii hadalka ee dadku ay ku barteen, maanta mid ka duwan ayuu sameynayaa, waxaana uu ku dhaqaaqayaa arrin ficil ah. Sheekada Dabcasar hadda waxay soo jiidatay dad badan, waxaana uu dareensiiyey sidoo kale dadka qaar in waalidku uu yahay muhiimadda koowaad ee nolosheena. Waxa uu ka soo safray cariga dheer ee Mareykanka, ciidaas fogna waxa uu kaga soo galay safar dheer si uu u soo gaaro gudaha waddanka Soomaaliya. Laakiinse tegitaankiisa Soomaaliya, khaasatan gobolka Galgaduud, uu ka sii tegay degmada Caabudwaaqe gobolka Galgaduud, halkaas waxa uu kula kulmay familkiisa. Laakiinse arrinta cajiibka ee baraha bulshada qabsatay isla markaana dad badan soo jiidatay waxay noqotay howl aan loogu baran Dabcasar, isla markaana hore uusan u soo muujin jirin oo markaan uu bidhaaminayo. Waxaa Dabcasar muuqaal kooban iyo sidoo kale sharaxaad kooban uu ka bixiyay arrintan. Waxa uu yidhi, waxaan caawinayaa hooyaday, waxaan dhaqayaa dharkeeda, waxaan warayaa dharkii hooyaday, waan faraxsanahay. Ajir muddo badan aan raadinayay iyo sidoo kale mar waliba arrin aan ku riyo jiray ayaan maanta ficilkeeda sameynayaa. Sidaas waxaa yidhi Cabdiraxmaan Dabcasar. Dabcasar oo kursi yar oo caaga ku fadhiya isla markaana baaf uu hor yaallo ayaa gacmaha kula dagaalamaya dhar u muuqanaya inay yihiin kuwa hooyadiisa. Dabcasar ayaa kaamiradu ay qabatay isagoo dhoola cadeynaya isla markaana farxad badan muujinaya. Markaan waxa uu isku soo sawiray dharka hooyadiisa oo uu gacantiisa uu ku waray kuna dhaqay isla gacmihiisa. Kaba sii daran, arrinta naxariista badan ee uu muujiyay Dabcasar ayaa waxay tahay, waxa uu yidhi, waxaan ka duceysanayaa hooyaday. Waxaa jiraan kumanaan qof oo hooyadood ay la joogto, laakiinse fursaddan camal aan ka faa'iidaysan. Dadka qaar way ka faanaan in howl noocaan oo kale ay qabtaan, laakiinse anigu waan ku faraxsanahay. Waxaan qaaday tillaabo wanaagsan. Waan jeclaan lahaa mar waliba cimrigayga inta ka dhiman inaan ku hoos dhammaysto hooyadeyda. Waa ruuxa keliya ee qiimaha iga mudan, waa farxaddii iyo sidoo kale noloshii adduunka. Xaqiiqadii waxaan qaaday tillaabo wanaagsan. Waxaan rajaynayaa dad badan inay ku baraarugaan in waalidka wax ka muhiimsan uusan jirin. Bal fiiri, waxaad samaysanaysaa maal, waxaad rajaynaysaa ubad, waxaad ku fikiraysaa nolol nuuc kala, laakiinse waxaad dayacaysaa mararka qaar midii hooyada. Muhiimaddu maahan in hooyada keliya lacag aad u soo dirto. Hooyaday waa inooshaa inaad tiraahdo keliya, laakiinse waxaa ka muhiimsan mar waliba in hooyada aad ka warqabtid, isla markaana waqtigaaga midka ugu qiimaha badan uu yahay qofka kaa mudan inaad agteeda ku qaadato hooyada. Hooyadu waa lama huraan, waana naxariista dunidan. Sheekada Dabcasar waxay soo jiidatay dad badan, waxaana dadka qaar ay ugu duceynayeen Allow u deyso hooyadiisa. Waa shakhsi baari ah. Kama hadlayna maantay Dabcasar muuqaal uu baahiyey, kama hadlayna maanta Dabcasar ayaa arrin hebel ka hadlay. Intaas waa sheeko gooni ah, laakiinse maanta muhiimadda iyo diiradda warbixintan waxaan ku saarayna wax kale maahan qiimaha hooyo oo u muujiyay Dabcasar iyo sidoo kale kaalinta muhiimka uu kaga jiro xagga hooyadiisa. Waxa uu Dabcasar uu tilmaamayaa inuu mar waliba jecel yahay xitaa cuntada inuu u kariyo hooyadiisa, gacantiisa uu ku siiyo, maadaama waqtiga ugu fiicnaa ee noloshiisa hadda uu la qaadanayo hooyada isaga dhashay. Bal fiiri, dharkii uu dhaqay isaga ayaa waraya. Waxa uu muujinayaa naxariis dadka qaar waalidkooda aysan u sameynin, laakiinse qof waliba, xitaa haddii aadan soo bandhigin, waa ay wanaagsan tahay in hooyada mar waliba naxariista iyo sidoo kale caawinta aad u sameynayso aad xasuusnaato qiimaheeda. Kaba sii daran, labadaada waalid oo mar waliba gacantaad ku hayso isla markaana aad caawiso waxay u dhigantaa farxadda dunida adigoo hantiyey. Culays kasta uu ku haysana waa uu kaa degayaa, waxaadna noqonaysaa qof Allow u fududeeyo rajo kasta uu lahaa iyo sidoo kale muraad kasta uu ku haminayay. Maxaa yeelay waddooyinka ugu dhowey loo mara xagga jannada waa xagga hooyada, oo naxariis badan aad u muujiso isla markaana aad caawiso, garabkeedana aad taagnaato xilli kasto. Tillaabada uu muujiyay Dabcasar waxay noqotay mid dad badan inay ku daydaan ay ku fikiraan. Maxaa yeelay hooyadu waa waxa ugu qiimaha badan ee dunidan. Ruux kasta waxa uu ku fikirayaa inuu caawiyo hooyadiisa, inuu garab qabtayada. Waa ay jiraan dad badan oo ku caasiya waalidkooda. Waa ay jiraan kuwa dib aan u soo raadin waalidkooda, isla markaana xitaa
mar aan oran sidee tahay ima fiicanta hooyo mise aabe, laakiinse quluubteenna alla muusan gelin madow la xiriira in xagga waalidka culays uu naga fuulo. Kumanaan ama malaayiin qof oo aad u jecel waalidkooda ayaa dunidan saaran. Waxaa jira kuwa marka codka hooyadood ay maqlaan ilmeynaya ama codka aabahooda, maxaa yeelay qiimaha waalidkooda ay u hayaan ayaa ka dhigan wax dunidan u dhigma inaysan jirin waalidkooda. Xaqiiqada ayaa waxay tahay in waalidka kaalin muhiim ah inoogu jiro nolosheenna. Sideed u aragtaa arrinta wanaagsan ee Cabdiraxmaan Dabcasar uu u sameynayo hooyadiisa? Bal fiiri halkuu fadhiyo waa meel qorraxdu ay qabanayso. Waxa uu soo qaatay baafkii dharku ku dhaqi lahaa. Waxa uu diyaarsaday halkii dharka markuu qalajiyo uu ku sii ridan lahaa. Waxa uu diyaarsaday biimankii sidoo kale xariggii dharku ku wari lahaa. Waxa uu sameynayaa tilaabo wanaagsan una muuqanaysa in qof waliba ay habboon tahay mar waliba in waalidkiisa uu dhimriyo, isla markaana naxariista halka ugu wanaagsan oo qofka uu ka heli kara ay tahay xagga waalidkiisa. Tani waa tilaabo wanaagsan oo ku tusinaysa kaalinta waalidkeena ay noogu jiraan. Ha ka faanin waalidkaaga garabkaad u tahay. Waxaa laga yaabaa in culays kasta oo aad dareemi jirtay uu kaa degi doono. Xasuusno waalidku wax kaaga qiimo badan ma jiraan. maxaa yeelay adigu aadan waxba ahayn ayay wax kaa dhigeen, way ku darajeeyeen, way ku qiimeeyeen, kor ayay kuu qaadeen, waxay kaa dhigeen ruux dahab iyo diamond ka qaalisan, waxay kuu muujiyeen farxadaan dhammaad lahayn. Sidaa daraaddeed waalidka mar waliba wuxuu inoogu jiraa kaalin muhiim ah. qof waliba warbixintan daawanayo waxaan ka codsanayaa inuu sheergareeyo si bulsho badan ay u gaarto, isla markaana dadkaasi ay u noqdaan kuwa u duceeya mar waliba waalidkooda adduun iyo aakhirayntaba. allow waalidkeena barakay kana dhig mar waliba mid dunidan ku hela caafimaad. haddii dunidan adiga aad ka hoofsatana allow aakhira ka dhig kuwii hela jannada firdowso. aamiin aamiin. ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.